السلام عليكم كلنتو عن أو wanaagsan muuqaalkan kooban waxaan ka hadli doonaa afar hab oo loo xaliyo qodmanka marka qofka ay bararaan ama waxa loo yaqaano tonsillitisku xoqadaha hadda sidii marka aad u fahmayso waxyaabaha la soo jeedo waxa kamid ah qofka inuu qaato nasashada qofka waxay ka caawinaysaa in jirkiisa awood u yeesho markaana sare loo qaado habka difaaca marka loo xaliyo dhibaatada marka qofku waxyaabaha kale la soo jeedo waxa kamid ah inuu qofku cabo biyo marka qabow si marka qofka ay u soo hesho ama u fududeyso inuu ka dareemo nafisaad ama in xanuunka marka qofka dareemayo xoqadaha ama qodmanka ay yaraysato marka qofka uu liqo cabitaankiisa oo kale biyihii qodobka saddexaad la soo jeedo waxa weeyaan qofku inuu marka ku luqluqdo biyo marka cusbo lagu daro ama milix isla markaana diiran si marka loo yareeyo bararka ama sidoo kale inflammation marka qofku uu dareemayo ugu dambeyntii qodobka afraad ee la soo jeediyo waxa weeyaan qofka inuu qaato ama isticmaalo dawooyinka lagula dagaalamo ama hoos lagu dhigo xanuunka marka qofku ka dareemayo qumanka maadaama ay xajmigoodu marka uu kordhaa marka uu bararay waxaa kaloo la soo jeediyo qofku inuu qaato dawada loo yaqaano paracetamol sidaan sheegnay iyo sidoo kale dawooyin kale ee loo yaqaano ibuprofen iyo marka kuwa lamidka waxaase qofku lagula talinaya inaanu qaadan dawada loo yaqaano aspirin tani kula dambe nabadgelyo.